dowladda Iran oo aad kaga soo horjeesatay heshiiskii uu dhex dhigay madaxweyne Trump dowladaha Armenia iyo Azerbaijan maxay tahay sababta Iran ay ku diidan tahay heshiiskaas waxaa jiro waxyaabo qarsoon oo heshiiska lagu soo bandhigay aan media la wadaagin laakiin Iran finally ay ogaatay in ka soo horjeesatay Mareykanka waxay qandaraas ku qaateen inay dhisi doonaan ama xiriirin doonaan dhul ay leedahay Azerbaijan oo ku yaal Armenia gudaheeda waxaa jiro magaalo la dhaho Naskaba ama gobol Naskaba waxay ka tirsan tahay Azerbaijan laakiin markii Azerbaijan ay aadaan maadaama ay dagaalsanayeen Armenia ma mari jirin dhulka oo ama diyaarada lagu tagi jiray ama Iran la soo dhaxmari jiray maadaama Iran labada wadan ay la leedahay xuduud laakiin hadda markay heshiiyeen Mareykanka waxay sheegeen inay dhisi doonaan wado ama corridor oo isku xiraaya Azerbaijan iyo gobolkan Naskaba oo ku dhex yaal Armenia arinta Iran waxay u aragtay in Mareykanka uu rabo meesha inuu base ama ciidan inuu dejiyo Israa'iilna ay ka dambayso oo furan cusub la rabo in laga bilaabo waqooyiga Iran Iran wadamada ay xuduudka leedahay badanaa Turkiya Iraq Afghanistan Pakistan kulli waxay la leedahay xiriir fiican Azerbaijan iyo Armenia waligood dagaal ku jireen wax xiriir fiican kala ma dhaxeeyeen Iran marka Iran waxay ka cabsoonay in Mareykan iyo Israa'iil meesha u soo degaan heshiiska markii la seexan hore waxa laga seexay in corridorkaas ama wadada tareenka iyo wadada baabuurta ay marayso ganacsiga fududeynaya gobolkan ka fog Azerbaijan Natkaba uu soo dhaweyn doono Azerbaijan Armenia ay ogolaatay marka heshiis walba adduunyada la galo waxaa jira waxyaabo yar oo qarsoon oo dadka aqliga sida fiican u fikira ay ka soo saari karaan Iran waxa isleeyahay xilliyada dambe siyaasadda caalamka si fiican u fahantay oo hadda adduunyada hadda ku baraarugeen heshiiska Trump in wax ay ku hoos jireen oo la rabo in labadan wadan Armenia iyo Azerbaijan Mareykanka ay ku yeeshaan base ciidan hadhowti u adeegsan karaan Iran haday rabaan inay weeraraan marka intigaada waa muhiim waxa isleeyahay siyaasadda caalamka ma aha wax yar fudud oo waxa la dilgareynaysid ama ma taqaana heshiis la galaysid waa dad khubara 40 sano 50 sano laga yaabo wasaaradda arrimaha dibadda wadankaas ka shaqeynay dhulkii yaqaan waxyaabaha mustaqbalka laga filinayo dhulkaas yaqaan marka Iran roolka ciyaaraysa ma xuma markii loo fiiriyo wadamada Carabta iyo Afrika waxa laga yaabaa Afrikaanka heshiiskan inay saxiix lahayn wadan diriskooda ma taqaana oo heshiis la galay Mareykanka kadibna ay ku baraarugi lahaayeen Mareykanka u fadhiyo xuduudka Iran arinta hadii ku guuleysato ay joojiso in Mareykan uu soo dogo meeshan waxay u noqonaysaa guul siyaasadeed kale laakiin hadii looga adkaado oo Mareykan uu soo dogo waxay noqonaysaa furin cusub oo mustaqbalka dib u keeni doonto Iran laga yaabo xataa in laga weeraro meeshaas